dagaalka ka socda dalka Iran oo ay wadaan isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil waxaa soo baxay laba kooxood oo military oo muhiim u ah difaaca nidaamka Iran kuwaas oo kala ah ciidanka ilaalada kacaanka iyo ciidanka Basij laakiin maxay ku kala duwan yihiin yaa hogaamiya dagaalka dibadda yaase ilaaliya gudaha dalka sidee ayay u wada shaqeeyaan muxuu yahay doorka mid kastoo ka mid ah inta uu socdo dagaalka ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta si aan u fahanno ciidanka ilaalada kacaanka iyo ciidanka Basij waa inaan dib u celinaa taariikhda sanadkii 1979kii markii uu dhacay kacaankii Iran ee uu meesha ka baxay nidaamkii boqortooyada ee Shah dalku wuxuu galay xaalad cusub bishii Febraayo ee sanadkaas hogaamiyihii kacaanka Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini ayaa dib ugu laabtay caasimadda dalka Iran ee Tehran inkastoo kacaanku guuleystay nidaamkii cusbaa wuxuu ku jiray xaalad shaki iyo cabsi weyn leh waxay si aad uga baqayeen in ciidamadii hore ee dalka oo loo yaqaano Artesh kuwaas oo daacad u ahaa boqorkii dhacay iyagoo ka baqay inay sameeyaan afgembi si khatartaas looga hortago bishii May ee sanadkii 1979kii Ayatollah Khomeini wuxuu soo saaray amar si rasmi ah loogu aasaasayo ciidanka ilaalada kacaanka ujeedadoodu ma ahayn oo keliya difaaca xuduudaha balse waxay ahayd ilaalinta kacaanka iyo nidaamka cusub oo ay ka hortagaan hanjabaadaha gudaha iyo midda dibadda ciidankan ayaa loo sameeyay si ay uga madax banaanaadaan unugyada ciidankii hore wuxuuna noqday awood cusub oo kacaanka u daacad ah Khomeini ayaa ciidankan ku sifeeyay kuwa ku dhisan fikrad iyo caqiido isagoo yiri haddii uusan jirin ciidanka ilaalada kacaanka dawladdu ma jiri lahayn waxyaabaha la yaabka leh ee ka jira dalka Iran waxaa ka mid ah inay jiraan laba awoodood oo ciidan ah ciidanka Artesh oo ah ciidankii hore ee boqortooyadii Shah iyo sidoo kaleeto ciidanka ilaalada kacaanka farqiga ugu weyn ee u dhaxeeyo labadan awoodood wuxuu ku cad yahay sharciga ugu sareeya ee dalka dastuurka Iran wuxuu si cad u dhigayaa in ciidanka rasmiga ah ay mas'uul ka yihiin ilaalinta madax banaanida dalka iyo difaaca dhuleed laakiin ciidanka ilaalada kacaanka iyaga sheekadoodu way ka weyn tahay qodobka 150aad ee dastuurka oo la cusboonaysiiyay sanadkii 1989kii wuxuu qeexayaa in ciidanka ilaalada kacaanka loo xilsaaray ilaalinta kacaanka iyo mabaadi'diisa maxay taasi ka dhigan tahay ficil ahaan tani waxay awood sharci siinaysaa in ciidanka ilaalada kacaanka ay geli karaan guryaha xiri karaan dadka oo ay si toos ah u faragelin karaan siyaasadda gudaha haddii ay u arkaan in nidaamka iyo kacaanka ay khatar ku jiraan waa awood baaxad weyn leh weligii uusan yeelan ciidanka rasmiga ah ee dalka haddii ciidanka ilaalada kacaanka ay yihiin maskaxda nidaamka waa hubaal in ciidanka Basij ay yihiin gacanta fulisa shaqada dhammaadkii sanadkii 1979kii Ayatollah Khomeini wuxuu ku baaqay in la dhiso ciidan ka kooban 20 milyan si loo ilaaliyo nidaamka siyaasadeed iyo midka diimeed ee dalkaas baaqan wuxuu abuuray ciidanka Basij oo loo yaqaano ciidanka kicinta Basij waxay ku bilowdeen xubno daacad u ah oo u shaqeeya si iska wax u qabso ah intii lagu jiray dagaalkii Iran iyo Ciraaq sanadkii 1980kii ilaa 1988 Basij waxay caan ku noqdeen fulinta weeraro halis ah oo ka dhan ah ciidankii Ciraaq waqtigaas waa waqtigii ay soo shacbaxeen awoodda ay leeyihiin ciidanka Basij taasoo u ogolaatay inay helaan cudud dhaqaale iyo mid military oo ka ballaaran midoodii hore maanta doorka ciidanka Basij aad buu isku bedelay waa ciidan ujeedooyin badan leh oo ku dhex milmay bulshada Iran معهد كدراسات كدجالك أيا كقياسي إن حبناها في الفرعون باسج أي جاريان إلى أفر بقولي كنتم كن أوقف إن كستو ترى حبناها عادي جاء لو قياسه ملايين وحيس جوكتوا وكل حجران إسكولدا حفيزية دولدا يجمع معها سيئوه بيان إن أنا لن يرضو
ku kicin kacaanka ma ahan oo keliya askar hubeysan balse waa sirdoon bulsho. Waxaa xusid mudan in qayb weyn oo ka mid ah awoodda Basij la isugu geeyey baraha internetka. Waxay leeyihiin kumanaan dhalinyaro ah oo loo yaqaano cyber Basij, kuwaas oo qaabilsan baraha bulshada si ay u faafiyaan dacayada dowladda oo ay u difaacaan awoodda Iiraan, isla markaana ay u weeraraan shakhsiyaadka iyo dowladaha ka soo horjeeda nidaamka Iiraan. Haddii aan eegno dhanka hubka iyo tirada kala duwanaanshaha labada awoodood ayaa si cad u muuqanayo. Ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan waxaa tiradooda lagu qiyaasay 125,000 oo dagaalyahan oo xirfad sare leh, waana ciidan casri ah oo u kala qaybsan 5 qaybood oo kala ah ciidanka dhulka, ciidanka hawada, iyo ciidanka badda, iyo sidoo kaleeto 2 laamood oo madax bannaan oo kala ah ciidanka Basij iyo ciidanka Quds Force. Ciidanka ilaalada kacaanka waxay gacanta ku hayaan awoodda difaaca ee ugu sareysa Iiraan. Waxay maamulaan nidaamka gantaalada casriga ah oo ay ku jiraan nidaamyada kuruuska iyo gantaalada balastikada, iyo sidoo kaleeto diyaaradaha daroniska iyo nidaamka difaaca cirka. Ciidanka ilaalada kacaanka ayaa si toos ah u xukuma barnaamijka nuclear-ka ee dalkaas. Waa hubka ugu muhiimsan oo ay ku hanjabto Iiraan, halka ciidanka ilaalada kacaanka ay diiradda saaraan hubka casriga ah iyo xeeladaha sare. Basij iyagu waxay ku tiirsan yihiin cududa iyo tirada dadka. Xiriirka ka dhexeeya labadan ciidan waa mid silsilad ah. Sanadkii 1981, Basij waxaa la dhexgeliyey qaab dhismeedka ciidanka ilaalada kacaanka. Sanadkii 2008 iyo 2009 ayaa si rasmi ah loogu daray ciidanka dhulka ee ilaalada kacaanka. Basij waxay amarada ka qaataan hogaamiyaha ciidanka ilaalada kacaanka, inkastoo taliyaha Basij uu si toos ah u magacaabo hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan, isagoo tixgelinayo talada madaxda ciidanka ilaalada kacaanka. Sheekada ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan kuma eka oo keliya dhinaca militariga iyo dhinaca ciidanka, balse waa ciidan ku hubeysan hanti aad u badan. Kadib burburkii dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq, ciidankan waxaa loogu baaqay inay dalka dib u dhiskiisa ka qayb qaataan. Tani waxay u noqotay albaab ay ka galaan awoodda dhaqaalaha ee qaranka. Maanta, shirkadooda weyn ee loo yaqaano Khatim al-Anbiya waxay gacanta ku haysaa kumanaan qandaraas oo dowladeed oo ku kacayo balaayiin dollar. Waxay ka qayb qaataan mashaariicda ugu waaweyn ee saliidda iyo gaaska, dhismayaasha wadooyinka iyo biyo-xireennada, iyo sidoo kaleeto isgaarsiinta. Wargeyska Los Angeles Times ayaa tilmaamayo in dakhliga sanadlaha ah ee ciidanka ilaalada kacaanka ah uu gaarayo ilaa 12 bilyan oo dollar, iyagoo xiriir la leh in ka badan 100 shirkadood oo waaweyn, maadaama ay yihiin hay-ad military oo u adeegta ammaanka qaranka. Hantidooda iyo xisaab xirkoodu waa mid qaran ah. Ma jiro hay-ad dowladeed ama baarlamaan oo baaritaan ku samayn kara dhaqaalahooda. Xorriyaddan waxay ciidanka ilaalada kacaanka ah u abuurtay kalsooni maaliyadeed oo ka madax bannaan miisaaniyadda dowladda, taas oo dhab ahaantii ka dhigayso kuwo xitaa ka awood badan madaxweynaha dalka marka ay timaado go'aanada waaweyn ee qaranka. Dhanka kale, ciidanka Basij waxay iyaguna si qoto dheer ugu dhex milmeen nidaamka rayidka ah. Cilmi baarayaasha qaar ayaa tilmaamayo in ka badan kala bar shaqaalaha dowladda Iiraan ay yihiin xubno firfircoon oo ka tirsan ciidanka Basij. Waxaa jira sharci dhaqangal ah oo ah 40% kuraasta jaamacadaha oo u qoondeeyeen xubnaha ka tirsan Basij, taas oo dhalinyarada ku dhiirigelinayso inay ciidanka Basij ay ku biiraan si ay u helaan waxbarasho free ah iyo dakhli ay ku kaabaan noloshooda. Awoodda ciidanka ee ilaalada kacaanka kuma eka oo keliya xuduudaha iyo gudaha dalka Iiraan, balse waa halka ay ku gaarsiiyaan awooddooda dhanka dibadda. Ciidanka Quds waa qayb ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka oo u qaabilsan dhanka dibadda. Ciidanka Quds ma ahan ciidan si toos ah u taga aagga dagaalka, balse waa macallimiin, tababarayaal iyo agaasimayaal istiraatiiji ah. Shaqadoodu waa inay abuuraan oo maalgeliyaan oo ay hubeeyaan ciidamo shisheeye si ay u galaan dagaal wakaaladeed
ama waxa loo yaqaano proxy war, kuwaas oo fulinayo danaha Iiraan oo ka dhacayo dibadda dalka Iiraan. Guusha ugu weyn ee ciidanka Qudus ay sameeyeen waa dhismaha iyo taakuleynta kooxda Xisbullah oo ka dagaalama dalka Lubnaan. Waxay siiyaan tababaro military oo heer sare ah, dhaqaale joogto ah iyo hub casri ah. Iiraan waxay u adeegsataa istiraatiijiyadda loo yaqaano difaaca hore. Xeeladani waa mid fudud laakiin xariifnimo leh. Waxay aaminsan yihiin in Iiraan ay cadowgeeda sida Mareykanka iyo Israa'iil kula dagaalanto caasimadaha dalalka kale ee Carabta iyo gobolka, halkii ay dagaalka ka geli lahaayeen dalka Iiraan. Waxay geeyeen dibaddiisa doorka labada ciidan ee dagaalka hadda socda. Marka la eego dagaalka hadda socda ee gobolka oo u dhexeeya Iiraan iyo isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, shaqada labada ciidan ayaa si cad u kala qaybsan. Ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa qaabilsan hogaaminta dagaalka dibadda iyo maareynta xaaladaha istiraatiijiga ah. Waa iyaga kuwa qaada weerarada ballaaran ee lagu beegsanayo Israa'iil, iyagoo adeegsanayo gantaalada ridada dhaadheer iyo tobanaan diyaarado drones ah. Waa iyaga cidda bixisa amarka lagu ridayo gantaalada balastikada ah ee lala beegsanayo saldhigyada Mareykanka iyo xarumaha xulufadiisa ee dalalka Khaliijka. Sidoo kale, ciidamada badda ee ciidanka ilaalada kacaanka waxay gacanta ku hayaan xakamaynta marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz, halkaas oo ay ka maamulaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta saliidda ee adduunka. Halka ciidanka ilaalada kacaanka ay la tacaalayaan dagaalka dibadda, Basij waxay difaacayaan gudaha. Doorkoodu waa ilaalinta iyo xasiloonida gudaha dalka. Xilliga nabadda waxay u shaqeeyaan sida booliska waddooyinka ka shaqeeya, iyagoo yimaada meelaha iskugu yimaadaan bulshada. Balse waqtiyada dagaalka iyo xiisadaha, shaqadoodu way ka adag tahay. Inta lagu guda jiray xiisadda dagaalka ee hadda, Basij waxaa saaran mas'uuliyadda la dagaalanka banaanbaxyaasha ka dhanka ah dowladda iyo ka hortagga abaabulada ka dhacayo jaamacadaha iyo iskuulada, iyo kormeerka dhaqdhaqaaq ah oo ka dhanka ah dowladda. Militariga, dhaqaalaha iyo amniga ee dalka Iiraan gebi ahaanba waxaa xukuma labadan awoodood. Ciidanka ilaalada kacaanka waxay u taagan yihiin xuduudda casriga ah ee caalamiga ah, maskaxda maamusha siyaasadda dibadda, gantaalada, dhaqaalaha baaxadda weyn, halka Basij ay yihiin ciidan dadweyne oo daacad u ah nidaamka iyo sidoo kaleeto indhaha sirdoonka iyo xogaha xakamaynta dhaqdhaqaaqa gudaha. Inkastoo ay shaqo ahaan kala duwan yihiin, labaduba waxay si toos ah u hoos yimaadaan hogaamiyaha sare ee dalka, waxayna leeyihiin hal ujeedo oo qura, taasoo ah ilaalinta iyo xaqiijinta sii jiritaanka nidaamka. Falanqeeyaasha siyaasadda waxay aaminsan yihiin haddii ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan la kala diro ama awooddooda la wiiqo, maanta nidaamka Iiraan wuu dumi lahaa saacado kooban gudahood. Sababta ugu weyn ee reer galbeedku ay uga guulaysan waayeen nidaamka Iiraan inay dumiyaan waa ciidanka ilaalada kacaanka ah oo si nidaamsan loo dhisay, iyagoo difaacayo dhinac kasta, ha ahaato dhinaca dhaqaalaha, mid military iyo mid diini ah intaba. Haddaba daawade, nala wadaag aragtidaada qaybta hoose ee kommentiyada. Waan ka soo jawaabi doonaa falanqeyntaada ama aragtidaada. Inagu reeb qaybta hoose ee kommentiyada. Fadlan like sar muuqaalka oo la wadaag asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir si aad u heshid xogo kale iyo macluumaad la xiriira taariikhda iyo dhacdooyinka. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani.